in ka badan 400 arday oo wax ka barata kuliyadaha caafimaadka ee jaamacadda Somafil ayaa tababar caafimaad sare looga qaadayo aqoontooda caafimaadka ku tagay isbitaalada Kaysaney Mukarrama isbitaalka Soos iyo kuwa kale ku yaala magaalada Muqdisho waxaana sharaxaad laga siinayay cudurrada iyo sida ay ugu shaqeyn lahaayeen bukaanada jiifa isbitaalada. ujeedada tababarka jaamacadda Somafil ay u siinayaan ardayda wax ka barata kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda qaybteeda caafimaadka ayaa ah sidii mustaqbalka loo heli lahaa arday tayadooda waxbarashada caafimaadka ay aad u wanaagsan tahay iyo in ardayda wax ka barata jaamacadda Somafil kuliyada caafimaadka ay helaan aqoon dhameystiran. qaar ka mid ah ardayda oo ka hadlay ahmiyadda uu tababarkan u leeyahay ayaa sheegay inay u shaqeyn doonaan dadka Soomaaliyeed ee ku xanuunsanaya isbitaalada magaalada Muqdisho. magacayga saddexan waa Huda Xuseen Cusmaan dhigata jaamacadda Somafil University. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta fursadan qaaliga ah oo nala siiyay inaan ku soo booqano isbitaalka weyn ee Kaysaney. magacayga Maxamuud Ali Shakuur Ali dhaa jaamacadda dhigta Somafil University dhigta. waxaan maanta soo baxnay maadaama aan nursing mustaqbalka Soomaaliyeed waxaan oo soo waday baraatigdaas oo saddex isbitaal aan ku socno kumid ah isbitaalka koowaad aan soo marnay Kaysaney saas oo qiibabkooda oo kala ah sida raajitada sida oo maternity sida oo emergency. agaasimaha isbitaalka Mukarrama Cabdirasaaq Xuseen Cadow ayaa ka warbixiyay tababarada ay siinayaan ardayda wax ka barata kuliyada caafimaadka ee jaamacadda Somafil. waxaan diyaar loo leeyahay in jaamacadaha ardayda wax ka baranaysa hadda isbitaalada inay ku soo xirmaan si waxbarashadooda iyo tayadooda kor loogu qaado sababtoo ah qofka bini'aadanka markuu wax baranayo labada qayb wax u kala barto waa theory iyo practical. haddii jaamacadii qofka laga soo tarbiyeeyo wax la soo siiyo training la soo siiyo wax la soo baro at least wuxuu u baahan yahay wuxuu soo qaatay inuu ku camal falo. gudoomiyaha jaamacadda Somafil Dr. Cabdinuur Sheekh Axmed ayaa ku guubaabiyay ardaydu inay kordhiyaan aqoontooda caafimaadka si loo helo dhakhaatiir tayo leh. ardayda Somafil waxay u yimaadeen tour waxa la yiraahdo medical tour oo loogu talagalay in ay arkaan dhammaan isbitaalada kala duwan ee ku yaala gobolka Banaadir si mustaqbalka ay ugu sahlanaato meel alla meesha ay tagaan say u fahmi karaan isbitaal waxa uu yahay waxa lagu qabto iyo qaybaha kala duwan ee isbitaalka ay tagayaan hadba uu ka kooban yahay. maanta waxay ku soo bilaabmeen isbitaalka weyn ee Kaysaney Hospital kaas oo u qaybsamo qaybo kala duwan. qaybaha kala duwan isbitaalka ay soo mareen haddana waxay tagi doonaan qaybo kala duwan. ardaydan waxay hore u qaateen casharada fasalka ee caafimaadka balse tababarkan waxa uu ka saacidayaa in si toos ay u arkaan casharadii hore loo soo baray. Muuse Cismaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.